بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدا عدو أركتان waxay suu keen dambeysay shalay markii aan idin tibaaxinayay halka uu wada hadalku noo marayo waxaan hadda ku sugannahay xaruntii shirkadda Dubai Well ee aynu kula heshiinaynay berbera maamulkeeda waxaan shalay idinku ballan qaaday in war idinka farxiya aad maqli doontaan waqtiyada dhow waxaan idin sheegayaa dhammaan reer Somaliland inaanu ku heshiinay qodobadii sida u dhamaayeen annaga ee shirkadda Dubai Well berri toolana ay noqonaysaa saxiixii kama dambaysta ahaa waxaan nimanka ka soo baxnay shirkaas oo aanu la galay kolkii aanu farsamo yaqaanadii ay aad u soo arkeen anagu la galay gudoomiyihii shirkadda Dubai Well Mr. Sultan kaas oo aanu isla qaadanay qodobadii aanu hore u soo falanqeynay marka waxa weeyaan heshiiskii kama dambaysta ahaana in berri la saxiixo ku farxa wa salaamantii. بسم الله الرحمن الرحيم سيدا ونو شيغي وزيرka qorsheynta qaranka Ali Shombe oo ah afayeenka gudida halkan u joogta xukuumadda Somaliland ee wada hadalada la wada shirkadda DP World waxa muddo toddobaad ku dhow halkan joogay gudidii wada hadalada u joogtay gudidaasi maanta waxay soo gabagabaysay wada hadaladii ay la waday shirkadda DP World إن شاء الله تعالى أنا برينا وحي صحيح دونا نشيسكي رسمي ها أي لجرين شركة دي بي وولد حكومة الصوماليلاند وحن شاليد الصوماليلاند كنا قدر الإمارات كوشيء إن هطول الله إدمو إن وفتي ولا كل مدونتو شاليد هل كان كنا قن هبين ماذا سنين تسلسل السوق اللي هطول الله إدمو قاب طلعوا دقة يوقت كانوا ديب أيام تكسو شيء دونا waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waftigii xukuumadda ka socday halkan muddada imka 5 bilood ahayd ugu imanayay wada hadalada ay la wadeen shirkadda DP World waftigaasi oo runtii shaqo wacan qaranka u qabtay qarankuna aad iyo aad ugu mahadinayo marka aniga ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo iyo shacabka reer Somaliland guda iyo dibadda waxaan ugu mahad celinayaa guusha weyn ay u soo hooyeen shacabka waxaan leeyahay ilaahay ha inooga dhigo mid khayr qabta mid aynu ku waarno oo aynu kaga baahi baxno mushaakilaad iyo dhibaatooyin fara badan dalka iyo dadkana u horseedo horumar wanaagsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.